ويريو وحيد وحن كوغير يسوي فردي مدحتويديسي وحن كوغير maxaa wax kasta oo aad adigu tiriso xaqayga loogu soo kacay anaga loogu adeegsadaa waxaan anigu mar haddaan anigu qallo calahayn cid kale oo jirta ay oo intay meesha naga dhex qaatay ay tayadu macnaha doonaysa u samaysay anigu dambi ma lihi anigu kaan tiriyay waa ka marka way ku jireen qaar badan oo hal qaleeqaleeda lagu soo qabaamo qalalaasi aan boqor baaleelo laba waliba qaybta qorraxday ku dubatay iyo taycel walwaalidku go'aan wadaamo waana dhacantay wadnaha farku haya qabaylaas markaa tiri waa kuwa ka qaylinaya galabta wuxuu yiri waxa doontanay weydii madaxtooyadii baan markaa koofeed casbaa itibtay madaxweynaha ku yeeray marka halkii baan ugu tagay wuxuu waxa doontanay weydii maanta wixii ka dambeeyay wax anaga nagu saabsan oo aad tirisa yaani jirin waxaan ku wixii alla ka dhigo ilaahay baa talada ay noqonaysaa waqti yar ka bacda cusubada hal qaleeqaleeda lagu soo qabaamo qalalaasi baan boqor baaleelo laba waliba qaybteed iyo weliga cad quureedna qaadan maayo qalanjada faraadheer wax la qaybsan maayo loo geeyo waxa qaatay inaan kulankii aan kulanay aan isaga kulay weliga cad quureed adiga ka qaadan maayo hay weliga cad quureedna qaadan maayo qalanjada nidaam kan dhashay wax la qaybsan maayo tabadna taabay saqdhexe la yimi aniga waxbar jooga la foolaan joogay gurigii baa la igu garaacay ciidan baa soo galay xerada waa baara 11 meelaha habeenimo oo dibadday joogeen waxay silaahdeen waxay la foolay wuxuu xarun weyn oo jaamacad ku taalo wax lagu barto marka waxay leedahay bartaynta dadku seexayaan loogaan inaga muraadkeena dibaddii ba fadhiisteen markay sidaan ilaa 11 sida malaayiminka la seexay ay soo galeen anna waxaan ka soo baxay khadaro dibadda ahoo markaasaan guriga soo galay doonina jiifsado babka la igu garaacay babkan tagayo waa ka furayo markaa la iga furaa ciidan soo galay saddex nin oo soo galay adigoo hortaagan oo leeyahay war bas ka waran ayaa mid kale oo ordaya show taaqada nin ku harayo taaqada ku beegan sariirta aan farkaan ku fadhiyo kooxo wuxuu yiri marka la garaaca baabka uu kacayo waxa akhriyay marka wuxuu yiri malaa wuxuu qaatay waxaan akhriyaya waa kuwii ka dambaysta ahaa nidaamka ka soo horjeeday marka wuxuu yiri isaga ciidanka watado baltaqadan taagnaanaya waxa eegaya marka albaabka garaacada halkuu dhigay albaabka kaloo garaac waa furay way soo galeen ninkii ordaya ayaa la jirayo halkii lagu arkay halkaan dhigay horta walaaqtiiba muu eegine intuu la hablaabay ayuu jeebka ka shaday dabeetna nin nuur bilaar la oran jiray oo ciidanka ka mid ah raggii watay kornay lahaa markii dambe dhintay ayaa markii intaasi dhacday wuxuu yiri runtaan ku sheegaya waa ku xiraynaaye guriga wixii ka yaala soo qaado maxay ka yaalay waxaan soo qaatay waxaan sitaa sural baan ka shaday shaana waa gashaday fanaanad yar oo xagga saraana waa gashaday kabihii baan gashaday caday iyo baashan garfeedha leeshallada garfeedha la yidhaahdo iyo go-aan ku laabay intaasaan qaatay wax kale ma jirin halkii baa layla guday waagu wuxuu noogu bariyey mari horta halkii anigoo taagan baa layla soo baxo soo baabuurtii dibadda ay u taallaa nimankan NSS ay qabanaya baabuur baa la yidhi baabuur yar baabuurka soo galay baabuurka laygu qaado xagga dambe inta lay fadhiisan ninoo xagga ka fadhiiso ninoo xagga ka fadhiiso baabuur meel kayn hoo u dhow iskuulka joogta ayaabaa laygay oo ay wateen oo halkaa lagu soo qariyey markaas soo degay baa la kaxiyey baabuurkii aan fuulayey markaan soo taagay dhinaciisa ayaa dabeetna ninkaa nuur bidaalku baashii intuu qaatay nuur bidaal mayna kaa kale ciidanka watay rasooli ayaa intuu baashii la soo baxay labada gacmood igu jabiyey ومفتاحي ساو markaa waaba qabatay oo mid labada gacmood taayad maxuubay mid bay aad ii qabatay markaa waxaan baash weeyay ilaa ma hadlino iga jawaabine intuu igu jabiyay ayuu mفتاحي jeebka gashaday baabuurtii soo dhaqaaqday dabeetana waa layla guday meesha qasax dheer la yiraahdo habeenkii oo dhan ku joog baan lixdiis waxnaan yaa bay dhaba waagu noogu bari shaah baa lay keenay madow warcabo halkii baan ka dhaqaaqno qasax dheer meesha la yiraahdo yaa laygay markii laygay ka tiirtii layga furay horta waxa la yiraahdaa alxamdulillah baashi haysay meel qol yar baa laygeliyo qolkii baan isdhex taagay
waxaan idhi anaa isla shawray naftaan la shawray waxaa idhi halkaa waxaa laguu keenay soo garan maysid hadraawo haa waxaa laguu keenay inaad isdhiibto oo intaad xamidi weydo xabsiga haataad waxaa doontaan baan yeelayahay meesha hee iga saara haddaba halkan ha dhibsanin caalamkii oo dhan meesha qolkaa yar ka dhigo ee lagu geliya caalamkii oo dhan qolkaa yar ka dhigo masaajid ka dhigo ka waran waa meeshii u horreysay intaan salaada isu taagay aan ku tukaday bay ahayd salkii yaraaye leegeeya qasax dheere 5 sannadood baan la soo jiifay nina kitaab buu iga keenay magaalada oo kitaabkana waa akhristaa dabeedna markii aan meesha istaagay yani meesha yaanay ku dhibin meeshu ilaa waxa la doonaya waxa lagu geeyay inaad qayliso oo tiraahdo xabidi weydee waxaan hadaba camal samayso camal dad iska fadhido waxa kugu dhacay waxa la yiraahdo frustration soo ma waxaan camal samayso si aad u mashquulso nafta u mashquuliso meesha waxa la deed weyn oo kala ah horta meeshii oo dhan waxaan ku beeray basbaas iyo tabaando iyo baashan arabikida la yiraahdo iyo waxaasoo dhan ku beeray kaami magaaladii wadaasado iyo weel bay soo qaadato beetaydii xaggana waxaan ku beeray digaag waa meesha wadayrkii gudaha xaggana digaag baan ku beeray sakadhanoo digaag oo gurya ah sidaa u taxanoo xaafad aad boodo aan ka era dhex gale raalinayga hawa in beertii aad beertay dalaga ka soo galmeed iibin jirtay maya dadkaas intay daasada yaryar iyo baldibaada soo qaataan beerta soo geli jiro guran jiray tamaandhada iyo basbaaska iyo waxaan iyo hataa babay waa ku jiray laakiin xaasha lillah cidda intay soo galaan waxa ku yaala ka goosan jiro ka tagi jiray digaag baan beeray sakadhan ayaan u sameeyo kuwa dhalayda ana meel baan u sameeyey inta kalena meel baan u sameeyey inta waxaan uga jeedaa yaan frustration kugu dhicina ismashquuli qofku hadduu iska fadhiisto marka dambe wuu ka boodaya wuu waalanaya dabadeedna maalin oo dhan sunrise to sunset aroortii marka waagu bariyo 7 mitir meelaha ilaa 5 waxaan mashquul ku ahay beerta iyo digaaga magaaladii basbaaskayga bay guranaysaa tamaandhadii bay guranaysaa beerkii digaag u dhalay bay guranaysaa oo qanwan martiya yimaado digaagayga baa loo qalqalayaa meesha waxaan ka noqdayba haddii ilaahay ka dhigo cajiiba oo waxaan ku tashaday inaan go'aan qaato waxaan fadhigu waa mushkilad haddii idinku timaado iminkaba taas haddii idinku timaado haddii cidla laydin geeyo lagaa aamuso haysdhiibine waxaa la fariistaa camal ismashquuli tula cidlaaba waxay tahay ugu yaabka badneed waxaad ummadda joogtaana nafkeeda garanayno luqadaana weligay maqal oo raxan weyna niman leedo raxan weyn maymaygu si kala culus yihiin niman leedo raxan weyn oo geeradle la yiraahdo oo meeshaas jooga oo aanad kelmad afkooda ka garanayn ayaa la dhexgeeyo waxaan isaga qaatay kuwaasaan af garanayne in kuwa dhexgeeyno marka halkaas ay ahayd muddadaas iyo intaas ay ahayd intii aan 5 sanadood halkaa joogay 9 gabay 10 gabay baan ku tiriyay meesha la ima ogolaan qaliya waraaq toona laakiin hibadii baan leeyahay wixii ba joogi karaba ma deyn karo 10 gabay ayaan ku tiriyay 5 sanadood baan halkaa ku xidhnaa 5 sanadood oo def amarka isaga lahaa maxamed saad barre 5 sanadood markaan anoo xidhan ilmaantii dabciido xilbal nimankii ordo soo qaada wadana korgalbay hadda yaa niman baabuur watay baatirna warbar nabad adigoo meel meesha horteeda iska taagan seexanay war bisaa joogtay meesha waxaan 5 sanadood baan joogay meesha waad ku raagtay bal waa ku qaadaynaa guriga wax ka yaala soo qaado maxay ka yaala waxa soo qaatay waxa sitay caday iyo garfeed iyo go iyo surwaal iyo shaar iyo furaanad intii baan soo qaatay dabeetana baabuurka lay furay waan dhaqaaqay bala 6 oo dhow habeenkii oo dhan baabuurkaasi uu socday goor dambe ilaa 12 meelaha ayuu xamar galay hotel bulsho la oran jiray hotel bulsho oo sataaladii weyneed in Cabdullaahi Xasan ku barbaryaalay oo ilaa 4-5 dabaq ayaa leeyay qolka mara dabaqa 3aad mar leeyahay qolliga waxa halkaas la geeyo halkaas habeenkii saacad dhowr casho halkii laygu hayay antii dambe la leeyo soo hadlay madaxweynihii siyaad barre oo wuxuu balkii hal ay keen isagoo imka aaminsan inaan tii khalaas ninkii hal ay keen
isagoo madaxtooyada halkii madaxtooyada intaan soo gelin baa guddigii madaxtooyada wuxuu ciidanka dhexdiisu deganaa ciidankii militariga ahaa kii baa laga geeyey wuxuu bal wasan waa nabad marka kulanka yagii labaad weeyey wuxuu yidhi qasax dheere ka war qasax dheere waxaan dee ninkii geeyey baa iga badiyee isaga weydiiye halkiiba wuxuu isku dayi jiray maxamed siyaad barre inta aad la joogto intuu ku bedelo inuu qofku isagu doonayo kaa dhigo halkiiba khudbad ka bilaabay waa kacaanku kuma nabca waa ka waxaan imika xusuusnay inuu ciidda ka badan iminkana laba shay baan yeelaya adna mid yeel kow waxaa lale waxaa doonto iweydii ilaa markale aakhiro la odhanaya ku noqo waxaa le waxaa doonto iweydii laakiin wax dambe oo aad tiriso annaga lagu saabsan oo la ii keenaa yaani jirin waxaan idhi waa haddii ilaahay ka dhigo waa haddii dee sida ilaahay ka dhigay noqonaysa adigu calaa kulli xaal ninkii ilaa 4 gooroo dambaan kulanay maxamed siyaad barre mar walba waxaa arrintu taagnayd dee jooji waxaanaad wato jooji